su-aasha sida gaarka mawduuca ugu dambaysiinayo waxay tahay ustaad maadaama mawduucan cid badan ay ku jiraan dad badan ay ka hadlayaan laga yaabo dadka ka hadla amba dadka mawduucan ka hadlay inay diimo kala duwan aaminsan yihiin aqoonidooyinkoodu inay kala duwan yihiin dhaqanka iyo meesha ay ku nool yihiin kala duwan yihiin waaqicoodu inaan isku salaysnayn marka maxay tahay yani talada amba waxa laga rabo qofkan dhageysanaya amba doonaya dad mawduuca ka hadla inuu ku daba faylo oo dhageysto waqtigiisa geliyo talooyinka ay sheegayaan inuu qaato maxaa looga baahan yahay qofkaas inuu sameeyo in maxay iska shaandeeyo qodobada muhiimka ah aad kula talin lahayd qofka inuu sameeyo si aan wax kasto la sheegayo aan u qaadan oo maskaxdiisa qashan qob noqon runtii waa su'aal aad u muhiim ah oo islaayeen ka maqnaato maba mudna laakiin mid baan ku yara dar lahaa taladaas labaan ka dhigla mid waa qofka bixinaya mawduuca midna waa qofka qaadanaya amba buug ha ka akhrisanayo amba tadriib ha ku qaadanayo haddaan ku horeeyo qofka qaadanaya talada ugu wanaagsan si la waxa weeyaan buugaag fara badan baa jirta waana soo fara badan karaan Soomaalina waa la inagu soo turjumayaa نفط وانا مواضيع عن وضع شعله سوت وحوي قف كستي خصين هداد دختر تاي هداد سياسي تاي هداد لاير تاي هداد شيخ تاي وودو وحقف كل هالليا وبيرسونال ونولشادي اذا مر هدو مقع يو جيددو كعجبسو هورات كسو قبسنسا وادخري قاب قروح بدن ولبا الله دغا بوغاغ بدن haddana mis kala akhri marka caqabada ugu weyn ee qofka akhrista ka haysta waxa weeyaan in uu iska jeclaysto inuu akhriyo isagoon fulinaynin without application bal waliba qofka waxa kula talaado akhriyin baba dhaantaba waayo haddii dhakhtarka imika aad tagto dawooyin ku soo qoro xanuunsanayso oo aad isticmaalaynin amba si qaldan overdose aad u qaadato dib ku keenaysa ka war hadaad maalin walba noloshaadii wax u wanaagsan oo xikmado cajiib oo fikrado cajiib aad akhrinaysid haddana aan waxba ka fulinayn ma ana shaki kuga abuuran marka dambe oo hore maxay iga qaldan intaasunba ilaa aad arkaysa dadka qaar iyagoo kuba dhaliilaya kooranaya mawduucan 10 sano ku jirayo aan akhrinayo waxba waan ka faa'iido waayo waa khuraafaad tii adiga fulin هذا فلين تذكير فليه استعماله فليه نلا شو هذا ويكون برارن هذا در أدون تهاي در آخرتها قف كل عرض تقول الله هذه مركب وين شوي يسبوق مركب ساق هذا تو إمسف متى تسأله دبر هذاك بانقر اللي احتلابه يسبد الكورس هذا والساقات واحد ركتين ضب عنده كوان فعيه لحدي طلابنا مركب آخر ذي واحد ركتين يسف عن كوان فعيسه واتش على يستي اسكت دينة فلوسيد أنت أنا تبوق لبعض بساقات بل ما هل من نقطة هل نما نقطة اللي وابك عجيبية به فكرة ضوات كهالشبه هذا لكن كويدو مركا وارن قارة بوجاز نفط هذا الشيء كسبحبك كمان فايدين هالك اسكدك لكن وحبان كفايدة وبوجن هو عجيب أو فكرة عجيبة كتيرة تبى ترى هذا المتكلا سوق هذه هذا المتكلا سوق هذه أخيرا هذول بس مودين وحكا قلدين سما مركا هو without application taasi marka waa talada siinay qofka akhrisanaya aniguna naftayda marka si xasuusiyo kula dardaarmayo inta ugu yaraad ka filan karaysa laba saddex aragna ha noqoto ilaa aad soo fulisid hadhow caqabado halkeeda maxaa ka hortagay maxaad fulan weyday talo maxaa caadadii habita laakiin inaad isku daydo inta awooddaada inaad fulisid noloshaada de isbedel qeyr caadi aad ku arki doontaa biidnillah qof intuu xikmad iyo aqoon helay dabeetana fulinaya hadda si shirkadeed tahay hadda si shakhsiyadeed mid dal tahayba أما قدب كقفك بحناية تلاذا كسابسن إنه كو أن صلايا أرنكاس كو دين إنه كو تاي وهي مواضيع إذا عدة إنه جوه الرئيسي أما كمد ولو أن علماء المسلمين تسوق هذا النيل موضوع عنينا خرابة وشري لكن ما أنت عدة وقت جلسين فربضان ورجال بيت marka marar badan waxa dhici karaysa in aanad soo daadajin aba aanad deegaamin inagana muslim iyo Soomaali ma kala baxi karaan isku mid u bana marka inaad aad iska hubisid waxyaabo badan oo runtii tusaalayaal ka bixin karayno arrinka labaad waa cilmi sugan inuu leeyahay oo halka sayniska iska soo galaan mawduucani waxaan daraasad ku salaysay iyo cilmi tusaale buugaagta cilmiga ku salaysan oo kale atomic habit iyo mindset waa buugaag research iyo scientific ala cilmi lagu salaeyay weeyaan marka shaygii cilmi ma ku salaysay arrinka saddexaad waxa weeyaan inuu shaygii ay deegaamayna markaas
oo markaad qof Soomaaliya u sheegaysid amba aad u dhigaysid inaad isku dayso walow nasiib darro daraasaadkeenu aad u yariyeen amba jaamacaduhu sameynayaan laakiin inta ugu dhow sida aad qofka tusaale u fahmi karayo aad u sii lahayd aad u siiso marka inaad wixii deegaamaysid oo dadkaaga aad fahantid way haddaad maanta dhan soo qaadato tusaalayaasha iyo scenario-yada iyo case study-yada ay bugaagtooda ku naaxiyaan buug yaro inta leego gabigiisa content page ayaad arkaysaa 400 page bay ka dhigayaan inta kale maxaa ka buuxa waa case study-gaasi waxa soo tusaale maxay khuseeyaan waa noloshooda khuseeyaan marka haddii kuwaas unaad 24 saacadood u quudato wuxuu ma noqon doonaa tusaalaad bixinayso dhan inaanu noqon waxa in la xiriirin marka qofku intuu deegaameyn karo inuu deegaamay marka diinta iyo cilmi sugan iyo deegaameyn waa qofka bixinaya ama qofka akhrisanaya inuu fuliyo inta awoodiisa kolba intuu awoodo insha Allah